Aabe Xasan Cabdulaahi, 5 carruur ah ayuu ku waayay roob mahiigaan ah oo xalay miray Muqdisho. Biyaha oo gurigooda gudaha u galay ayay ku hafteen, xilli aabbahood iyo hooyadood ay ku mashquulsanaayeen badbaadinta awoowahood oo gabow ah. Roobku waa raxmad Alle, oo waxna uu ku dilo waxna uu ku nooleeyo. Waa kan loogu baahida badan yahay xilliga jiilaalka. Marka uu da'o dhammaanteen waa ku farxnaa, qaarkeen se halaagooda ayuu noqdaa. Carruurtu waa ubadka qurxiya dunida, iyagoo ooyaya ayay adduunka yimaadaan. Farxad ayaana lagu soo dhoweeyaa, balse marka ay dhintaan, waalidka ayaa u ooya, waxay dareemaan kelinnimo. Xasan, 12 sano oo uu deganaa guri ku agyaal warta Buulaxuubey, shalay ayuu ka soo guuray isagoo ka cabsi qaba in biyaha wartu ay ku fatahaan, balse halkii uu soo degay ayaa kaga daraatay gurigii uu ka soo guuray. Isla degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, 7 kale oo carruur ah ayaa ku qaraqmay daad ku soo rogmaday gurigooda sida ay booliisku sheegeen. Daad ayaa qaaday 4 wiil iyo 1 gabar oo uu dhalay Xasan. Waxa uu awoodi waayay inuu badbaadiyo, maadaama uusan aqoon dabaasha. Meydkooda ayay rag dabaalyaqaan ah u keeneen, si uu u aasto. Muqdisho dhexdeeda xilli roobaad walba, 100 qof oo aan degganayn guryo aan biyo celis ahayn ayaa ku sigta inay ku halaagsamaan. Badankoodu waxay ka soo toosaan aqallo ku yaal meelo god ah, oo biyuhu ay isugu yimaadaan. Waad ku mahadsantahay daawashada warbixintan. Like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan, siina sheer garee si muuqaalkani u gaaro saaxiibada.